madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen iyo mudane yuusuf axmed hagar dabageed oo maanta ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday hirshabelle. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddoonka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka hirshabelle daafurnaanta iyo habsami u socodka ay ku maamuleen hanaanka doorashadan oo wadajirka ay ugu soo shaqeeyeen dhammaan shacabka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta deegaanka hirshabelle. waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen iyo mudane yuusuf axmed hagar xilalka loo doortay maanta, aniga oo ka rajeynaya in ay u horseedaan bulshada deegaanka hirshabelle xasilooni, amni, midnimo, cadaalad iyo horumar loo dhan yahay, ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku dhiirigeliyey shacabka iyo maamulka hirshabelle adkeynta midnimada iyo waxwada qabsi midho dhal ah oo horseeda horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan bulshada deegaanka, taas oo xasilooni ku abuureysa deegaanada hirshabelle nolol iyo mustaqbal wanaagsanna u ah bulshada. ugu dambeyn, madaxweyne farmaajo ayaa alle ugu baryey madaxweynaha cusub ee hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa in ay ku guuleystaan gudashada waajibaadka culus ee horyaala bulshada deegaankana ay ku hogaamayaan cadaalad iyo horumar waara. sidoo kale waxaa iyana hambalyo iyo bogaadin u diray hoggaanka cusub ee loo doortay dowlad goboleedka hirshabelle madaxweynayaashii hore ee dalka iyo siyaasiyiin. bile mire maxamed, Hon Cable TV, Muqdisho.